waayeelka dhalinyarada iyo haweenka magaalada Laastomare ee waqooyiga gobolka Sanaag ayaa mar Cable TV u kurgalay xaaladda deegaanadaasi waxa ay ku guda jireen dhismaha saldhig booliskaas oo ay ku dhisayeen si iska wax u qabsaa waxayna sheegeen magaalada oo ka koobsata dal balaaran inaanay lahayn adeegyada muhiimka oo bulshada sida xarun caafimaad ceel dabiiciya saldhig boolis iyo adeegyo kale dhinaca kale ayaa waxa deegaanadaasi ka muuqday saameynta duruufaha ay ku yeelatay abaarta afar jirsatay ee ka jirta gobolka Sanaag waxayna maamulka iyo shacabka magaaladaasi xukuumadda ka codsadeen inay ka caawiyaan horumarka sida riig biyood iyo waxqabadada kale waxayna ahaayeen dhamaantoodba dad ku midaysan wax wada qabsiga waxayna ka dhawaajiyeen inaanay ciidina gacan ku siinin waxana hadaladoodii kamid ahaa reer Laastomare marka uu leenahay madaxweynuhu waa noogu yimid Laastomare waa garanaya loo sheegi maayo waa galbeedka Ceelaf weyn waxaan leenahay riigii uu noogu ballan qaaday biyaan xubba ka jirta madaxweynaha halkii laga doortay geedka malaartay waqlalayo maanta caleen male maalinta doortay caleen barwaaqay ahayd maanta waan biyala leh halkan aanu taaganahayna waa saldhig dad mutadawiciin ay sameeyeen oo ururiyeen iyo waxayeen wax la qabtaabay doonayaan waayo gacani kaligeed waxba ma qaban karto hadaan iskaashan waxaan u dhigeen oo dhagaxan u dhigeen oo hadii bere waxay doonayaan dhagaxan way dhigeen MCH inay ku xijiyaan bay doonayaan insha Allah maalmo dhow inay yana dhagax soo dhigtaan waxay u baahan yihiin gacan qabasho wanaagsan waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo hadii beedekeeda leeyahay hay'adaha iyo qurba joogta dalka qaasatan taayada inayna gacan siiyaan وmaanta waanu way sabaabulay waxaanu doonaynaa awal waxaanu oran jiray waxa la qabto maanta anaga hadii wax qabad ku boorino waan aragtaan waxaanu leenahay waxa la qabto dadkii abaar baa ka jirta biyalaan baahsan baa ka jirta waxa weeye deegarka dhiisha ku xijiyo wixii haysaan anaga waan aragtaan xoolihii waa inay dhamaadeen oo inay dhisto magaaladaas Laastomare oo magaalo weyna oo aan lahayn saldhig boolis tug caafimaad ceel dabiiciya marka insha Allah taala bulshaduna waxay maanta doonaysaa inay waxay dhagax dhigtay muxuu ahaayay saldhig boolis in arkaya in maqlaya in daawanaya waxaanu ka codsanaynaa inay wax nagala qabtaan hawlaha aanu doonayno aanu qabsano ee iska wax u qabsaa si kastaba ha ahaatee dumarka ka qayb qaadanaya dhismaha ayaa waxa uu ku cusub yahay deegaanada gobolka Sanaag waxayna tusaale fiican u tahay dumarada ku sugan deegaanada dhigooda Faraxaaji Cabdi Nuur telefishinka caalamiga Cable TV magaalada Laastomare ee waqooyiga gobolka Sanaag